waxaan xaqiraayay fii nafsi nafsadayda cajalada dhinaca kale ku dhammaystirayna haddii ilaah yidhaahdo wabilaahi towfiiq wallahu subxaanahu watacaala aclam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. waxaan ku jirnay xadiiskii ifkiga waxaa noogu soo dambeeyey caaisha radiallahu canha in rasuulku u tegay sal allahu calayh wasalam oo arrin uu weydiiyey aabbaheed iyo hooyadeedna ay uga jawaabi waayeen. intaa kabacdi ayadaa ka jawaabtay qaalad waxay tiri wa ana jaariyatun gabar ayaan ahaa xadiidatu sinna da'deedu ay yar tahay laa aqra'u kahiiran min alqur'aani qur'aan saas u badan oo aan aqaanay ama aan akhrinayay ma jirin. faqultu waxaan idhi innii aniga wallaahi baan ku dhaartay laqad calimtu waxaan ogahay annakum adinku samictum inaad maqasheen maa taxaddatha bihi annaasu waxay dadku ku sheekaysanayaan oo waqarra fii anfusikum nafafyaalkiina arrintaa ay sugtay oo aad ku kalsoonaateen oo wasadaqtum bihi aad rumayseen. walain qultu lakum haddaan idin idhaahdo innii anigu la bari'atun beri ayaan ka ahay arrintaa wallaahu yaclamu ilaahayna uu ogyahay innii anigu la bari'atun inaan beri ka ahay laa tasadiquunii ii rumayn maysaan bay tiri bidaalika arrintaa. walain ictaraftu haddaanse idiin qirta lakum adinka biamrin amar aan idiin qirta wallaahu yaclamu ilaahayna uu ogyahay innii anigu la bari'atun inaan beri ka ahay arrintaa la tusadiqunii waad ii rumaynaysaan. wallaahi ilaahay ayaan ku dhaartayo maa ajidu lii anigu idin heli maaye lii ani io walakum idinka maalan waxaan idinkugu mahmaaho ilaa abaa yuusufa yuusuf aabbihiis maahana id waqti qaala uu yidhi fa sabrun jamiil sabar wanaagsanaan ku dhaqmaa wallaahu almustacaanu ilaahay ayaana la kaalmo weydiisanayaa calaa maa tasifuuna waxa aad tilmaamaysaan oo aad sifaynaysaan taas keliyaan idin awoodi karaa bay tiri inaan dhaho. uma intaa ka bacdi taxawaltu waxaan u wareegay bay tiri calaa firaashii firaashkayga wa ana arju anigoo rajaynaya an yubari'anii allaahu inuu ilaahay i beri yeeli doono. laakiinse wallaahi maa danantu ma u malaynaynin an yanzila inuu ku soo dejinayo ilaahay fii sha'nii sha'nigaygii xaaladayda waxyi inuu ku soo dejinaayo ma u malaynaynin bay tiri walaana anigu axqaru waxaan liidaayay fii nafsii nafsadayda anoo iskala yar min an yutakallama bilqur'aani inay qur'aan igula soo hadlo fii amri amarkayga arrintan waa iskala liidaayay tiri oo ma isdheheen adoo caaisha le ayaa ilaahay warkaagii arrintaada qur'aan ku soo dejina. walaakin kuntu waxaan ahaabay tiri arju mid rajeeya an yaraa rasuulullaahi rasuulkii ilaahay inuu ku arko fi nawmi hurdada ru'yan riyo oo yubari'una allaahu bihaa ilaah uu igu beri yeelaayo taasaan rajaynaya. fawallaahi yaan ku dhaartaya maa raama ay maa faaraqa ma faaruqin rasuulullaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam oo kama istaagin majlisahu fadhigiisa walaa kharaja axad oo min ahli lbeyt ka mid ahna ma bixin xataa anzala allaahu calayhi alwaxyu ilaa ilaahay nebiga korkiisa alwaxya uu ku soo dejiyey fa akhadahu waxaa qabtay nebiga maa kaana ya'khuduhu wixii qaban jiray marka waxyi ku soo degaayo oo min alburaxaa'i dhidid ah xataa intii inahu rasuulku la yataxadaru minhu ay ka soo tifqo dhididkii mila aljummaani asagoo jummaan oo kale ah ay macnaha mila sidii luul oo kale asagoo dhibcihiisa ayuu ka soo daatay nebiga min alcaraqi dhididka fii yowmin maalin bayna ahayd shaatin qabow jiro oo xagaayo ah falamaa suraa markii laga fayday can rasuulillaah falamaa markii surya laga fayday can rasuulillaahi rasuulkii ilaahay xaggiisa sala allahu calayhi wasalam wahuwa yadxaku asagoo qoslaaya fakaana awala kelimatin kelimadii ugu horaysay oo takallama uu ku hadlay bihaa kelimadaa waxay ahayd an qaala lii inuu ii yidhi yaa caaishatu caaishay axmid illaaha ilaahay mahdi alxamdu lilaah dheh faqad bara'aki allaahu alla waa ku beri yeelay. faqaad lii ummii hooyaday waxay ii tiri quumii istaag ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaah u istaag sala allahu calayhi wasalam. faqultu waxaan idhi laa wallaahi maya ilaahay baan ku dhaartay laa aquumu ilayhi u istaagi maayo nebiga walaa axmadu kuna mahdin maayo ila allah ilaahay maahana subxaanahu wa tacaala
saad ii gasheen aad ii gasheen qofaan u istaagayaa ma jiro, qofaan ku mahdinaayoon alla ahayna ma jiro. inay u istaagta aad way u fiicneed baa layidhi, laakiin gabar yar ayay ahayd. faanzala allah, ilaah wuxuu soo dejiyey subxaanahu caza wajalla, ina aladiina kuwii jaa'uu la yimid bilifki been abuurashada, cusbatun minkum, waa jamiico adinka idinka mid ah alaayaati, aayadaha 10 ayuu ilaahay soo dejiyey subxaanahu wa tacaala. falamaa markii anzala allahu ilaah uu soo dejiyey caza qaalib ahaa oo wajalla weynaaye haada arrintaa fii baraa'atii, beri ahaashadeeda uu ilaahay i beri yeelay, qaala abuubakarin wuxuu yidhi asidiiqu wa kaana yunfiqu, wuxuu quudin jiruu masaruufi jiray calaa mistax bin uthaafa, mistax bin uthaafa ninka la yidhaahdo, liqaraabatin qaraabanimo oo minhu asaga xaggiisa kaga sugnaa darteeda ayuu u nafaqayn jiray, macnaha liajli lqaraaba darteed ayuu u nafaqayn jiray. wuxuu ku yidhi wallaahi laa unfiqu calaa mistaxin, mistax shay-an wax dambe oon siinaya abadan weligay ma jira buu dhahay. bacdamaa qaala licaaisha, kadib markii caaisha hadalkan uu ku yidhi uu suuqa geliyey way sinaysatay, anigana waxaan siinayaa mala buu dhahay abuubakar. faanzala allahu, ilaahay caza qaalib ahaa oo wajalla weynaaye abuubakar wuxuu ku soo dejiyey, walaa ya'tali, yaynan dhaaranin ululfadli, dadka fadliga u saaxiibka ah oo minkum adinka idinka mid ah. ululfadli, fadliga iyo ixsaanka iyo sadaqada dadka u saaxiibka ah. wasaca ay kahratu lmaal, xoolaha faraha badan dadka u saaxiibka ayay dhaaranin inay qaraabo iyo masaakiin iyo muhaajir wax siiyaan, ilaa qowlihi, ilaa qowlka ilaah laga gaaro ghafuuru raxiim. halaha ayuu soo dejiyey ilaah subxaanahu wa tacaala. faqaala abuubakarin, abuubakar wuxuu yidhi balaa wallaahi, ilaahay ayaan ku dhaartay, nacam inii anigu la uxibu waan jeclahay an yakfira allaahu lii, inuu ilaahay ii dembi dhaafo waa jeclahay. alaa tuxibuuna an yakfira allaahu lakum baa ku jirtay aayadda, ma jeclidiin miya inuu ilaahay idin dhaafo subxaanahu wa tacaala? haa buu yidhi abuubakar, maxaan u jeclaan waayey? waan jeclahay inuu ilaahay cafiyo. farajaca wuxuu u laabtay ilaa mistaxin alladii kaana yujri calayhi, wixii uu siin jiray, uu ku socodsiin jiray ayuu abuubakar ku laabtay oo sadaqadii ayuu meeshiisii ka sii waday waaye. wa kaana rasuulullaahi, rasuulka ilaahayna wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yas'alu, mid su'aala zaynaba binti jaxshin ayuu weydiin jiray, can amrii, amarkayga ayuu su'aalayey. zaynaba binti jaxshin waa naag ka mid ah naagaha nebiga uu la qabay caaisha, ayuu xaaladeeda weydiiyey. faqaala, wuxuu yidhi yaa zaynabu, zaynabay maa ra'ayti maxaad ku aragtay caaisha? faqaalad waxay tiri zaynaba, yaa rasuula allaahi, rasuulkii ilaahayow, axmii, waxaan ka ilaalinayaa samcii dhegahayga iyo wa basarii araggayga, waxaysan maqlin iyo waxaysan arkin. axmii samcii ay amnacu samcii min an aquula samictu, dhegahaygaan ka ilaalinayaa inaan idhaahda wax aanan maqlin waan maqlay waaye. wa basarii min an aquula absurtu walam absur, waxaanan arkin waan arkay inaan idhaahdo taasaan ka ilaalinaa. walaa akdibu fiima samictu walaa fiima absirtu, bal asduqu fii dalika, run ayaan kuu sheegaa bay tiri rasuulka allow i dhegayso. axmii samcii wa basarii wallaahi maa calimtu calayha, kuma ogi caaisha ilaa khayran, khayr maahane. qaalad waxay tiri caaishaa dhahaysa, wahiya zaynaba allatii tii waaye kaanad ahayd tusaamiinii, mid ila faantanta ayay ahaan jirtay. laba laysla qabay ahaayeen, labadooda way isku faantami jireen, oo caaishana waxay dhihi jirtay aniga ayaa gabarnimo loogu guursaday keliya. zaynabana waxay dhihi jirtay anigu waxaan ahay tii alla uu ka soo muhriyey min fawqi 7 samaawaat. saasay ku faantami jireen. wahiya allatii kaanat tusaamiinii facasamaha allaahu, ilaah wuxuu ku ilaaliyey maalintaa bilwaraci, xalaal miradnimo. way ka faa'iidaysan kartay fursadda oo waxay dhihi kartay caaisho way sinaysatay, run waaye iska fur, laakiin ilaahay ayaa warci iyo xalaal miradnimo ku ilaaliyey, mana gabood falin zaynaba binti jaxshin radia allahu canha. xadiiskii 120aad can cabdullaahi qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi, rasuulkii allah wuxuu dhahay sala allahu calayhi wasalam, man xalafa billaah, qofkii ilaahay ku dhaarta calaa yamiinin, dhaar dusheeda, wahwa fiiha, asagoo dhaartaa gudaheeda faajirun, ku faajirnimo falaya, liyaqtatica biha, inuu ku goosto maali imri'in muslimin, qof muslim ah maalkiisa, laqiya allaaha, alla wuu la kulmaa, wahwa calayhi qadbaanu, asagoo u xaraysan, asagoo u xanaaqsan ayuu ilaahay la kulmayaa subxaanahu wa tacaala. qof walba oo dhaarta oo ilaahay magaciisa ku dhaarta asagoo ku been sheegaya dhaartaa, wahwa fiiha faajirun,
ay macnaha kaadibun ku been sheegaya oo raba liyaqtatica inuu ku qaato ku goosto biha dhaarta beenta ee faajirnimada ah maal imri'in muslim qof muslim ah maalkiisa inuu ku qaato raba laqiya allahu allah ayuu la kulmaa wahwa calayhi ghadbaan asagoo u xanaaqsan xadiiskii 121 can abi hurayrata can الnabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi nabiga laa tusadiquu ha u rumaynina ahla alkitaabi kitaabka ehelkiisa walaa tukadibuuhum hana ku beeninina ee waquuluu dhaha aamanaa billaahi allaan aaminay iyo wamaa unzila ilayna wixii xaggeenna loo soo dejiyeyna waan aaminay sidaa dhaha ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam laa tusadiquu ha u rumaynina ahla alkitaabi walaa tukadibuuhum hana u beeninina waxay idiin sheegaan waayo waa dad ahlu kitaab ah mar walba waquuluu aamanaa waxaan aaminay dhaha billaahi ilaahay iyo wamaa unzila ilayna wixii xaggeenna loo soo dejiyey xadiiskii 122 can ummi kalhuumin binti cuqbata ummi kalhuum ayaa laga wariyey oo binti cuqba gabadhiisa ahayd annahaa samicad waxay maqashay rasuula allahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam oo yaquul dhahaya laysa alkadaabu beenlow lama yidhaahdo alladii midka yuslixu hagaajinayo islaaxinaya bayna annaasi dadka beenkooda laba qofaad rabtaa inaad heshiisiisid been inaad u sheegta way bannaan tahay hadduu qofkaa ku been sheego beenlow ma aha oo fayanmii khayran khayr tamaninaya fayanmii khayran yarfacu kor u qaadaya macnaha oo dadka khayr raba inuu gaaro ow yaquulu khayran ama khayr dhahaya waa shaku raawi muraadka inuu yidhaahdo wax allaala wixii khayra asagoo raba inuu gaaro labada dhinac inuu ka sheego xataa wax aan jirin mashaakil kuma sugna buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam xadiisku wuxuu tilmaamayaa ninka dadka heshiisiinaya in loo ogol yahay inuu ku been sheegi karo labada qofoodna been uu ku sheegi karo si uu rabo inuu ku gaaro maslaxad inay labadooda markaa gaaraan xadiiskii 123 can bara bin caazibin qaala wuxuu yidhi saalaxa annabiyu nebigu wuxuu la heshiiyey sala allahu calayhi wasalam almushrikiina mushrikiinta yowma xudayba maalintii xudayba ayuu la heshiiyey yowma xudayba maalintii nebiga sala allahu calayhi wasalam uu rabay inuu soo cimraysto ayay ahayd sanadii 6aad ee hijrada xudayba meesha la yidhaahdo mar allaala markii uu soo gaaray ayay mushrikiintii u diideen nebiga inuu galo maka intaa ka bacdi ayadoo dagaal dhici rabo ayaa sulxi iyo heshiis yimid nebiga sala allahu calayhi wasalam maalintaa wuxuu kula heshiiyey calaa 3 ashyaa 3 waxyaabood waxyaabuu kula heshiiyaa 3 ka mid ahaa loola jeedaa ama heshiiska meeshaa ka dhacay ilaa 10 ayuu gaarayay calaa an man ataahu qof allaala qofkii u yimaado oo min almushrikiina mushrikiinta ka mid ah raddahu ilayhim waa inuu celiyo qofkii gaalada ka yimaadoo soo muslima oo muslimiinta u yimaada in la celiyo oo gaalada loo celiyo waman ataahum qofkii gaalada u taga oo min almuslimiin ka mid ahna lam yarudduhu inaan la soo celinin heshiiskaas ayaa la gaaray muslimiinta aad bay uga xumaatay heshiiska waxay dhaheen dullinimadan maba qaadanayno qof annaga naga midoo xagga tagoon la soo celinaynin kooda soo islaamoo la celinaayo macquul ma aha dhaafuu dhahay rasuulka ilaah sala allahu calayhi wasalam waayo anigu rasuulkii ilaahay ayaan ahaye qora buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam heshiiska وعلى طلبات وعلى أن يدخلها إنه رسولك صلى الله عليه وسلم من قابل سنة كسو السعودة سنة كان مبنوس وقلي سيدي دهين سنة كلا إماو صوامات النبي مركا سنة كلا أصول نغضى عمرة القضاء ومركا قتي ويقيم بها ونكون هذا 3 أيام 6 مالمود بس 6 مالمود وحي كدن بيه إنه نغضى ويسكبحه تاسي مركا أمتقانا لوه شيء فسدحاد ولا يدخلها إن لا سوقل إلا بجلبان السلاح الصيفي سيفها جلبان تودا ماهاني معناها قالك سيفها ماهاني إنا وحكا لا سوقل المكا تانا هشيس كي سدحاد أيو مركا أها سدحدا وحيابوت أي كل هشيين in mataqaanaa sidaa la sameeyo 3 waxyaabood markii lagu heshiiyey seefta galkeeda iyo walqawsi qaansada bas wanaxwihima iyo wixii lamid ah fajaa
isla markii waxaa yimid markuu heshiiskii dhacay abujandalin ninka la yidhaahdo oo yaxjulu ku soo boodboodaayo fii quyuudihi xarigiisa. wuxuu ahaa muslimiinta gaalada ku dhex jirta waa la cadaadin jiray. wuu ka soo fagtay asagoo lugaha katiina ugu xiran oo soo boodboodaaya ayuu yimid oo muslimiinta uu soo dhex galay. abujandal waa cabdullaahi bin alcaas bin suhayl ninka la yidhaahdo ayaa muslimiintii yimid. markii ninkii heshiiskii ay kala saxiixdeen nebiga waa tanaatii ugu horraysay noo soo celiyaa la yidhi, faraddahu ilayhim waa loo celiyey asagoo dhahaya yaa muslimiin yaa rasuula allah yaa macshar almuslimiin aruddu ila almushrikiin, mushrikiinta ma ii celinaysiin, yaftinuunanii fii diinii ayagoo diinkayga iga fitnaynaaya. markaasuu rasuulku yidhi yaa abaa jandal isbir waxtasib, iska sabr oo ajir xisaabso, fa ina allaha jaacilun laka waliman macaka min almustadcafiina bimaka farajan wa makhrajan. adi iyo dadka mustadcafiinta ee maka joogaba faraj iyo makhraj buu ilaah idiin samayn doonaa. wa ana qad caqadnaa baynana wa baynahum sulxan, waayo heshiis ayaan kala galnay, sidaasuu rasuulku dhahay sala allahu calayh wasalam. abujandal waa la celiyey xadiiskii 124 can sacd bin abi waqaas qaala wuxuu yidhi jaaa annabiyu, nebiga ayaa ii yimid sala allahu calayhi wasalam yacuudunii asagoo isoo booqanaya wa ana anigoo bimakkata maka ku sugan. anigoo maka jooga ayuu ii yimid wahwa yakrahu, sacad waaye wuxuu nacayay an yamuuta bilardi, dhul inuu ku dhinto allatii haajara minha uu ka hijrooday, dhulkii uu ka hijrooday inuu ku dhinto. wahwa yakrahudaa damiirka waxaa loo celinaa baa la yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam. min kalaami sacad inay tahay baa suuragal ah. waxaad dhahdaa wahwa ay xaal nebigana uu ahaa asagoo nacaya inuu ku dhinto sacad dhulkii uu ka hijrooday, waay markuu ku xanuunsaday markaa aad iyo aad ayuu u xanuunsaday. qaala wuxuu dhahay nebiga yarxamu allah, allah ha u naxariista ibna cafraa'a ninka la yidhaahdo, ibnu cafraa ninka la yidhahdo raxmadda allah siiyo, waayo ninka noocaasa ninkii baayiska ahaa waaye, waa sacad bin khawla. mar allaala markii uu yimid magaalada madiina wuxuu ku soo noqday maka, meesha ayuu ku dhintay. ninkaana rabbi aa u naxariistay. fasa'altu rasuulallaahi, rasuulka alle ayaan su'aalay buu dhahay sacad sala allahu calayhi wasalam. qultu waxaan idhi yaa rasuula allah, rasuulka ilaahayow uusii bimaalii kullihi, maalkayga oo dhan ma dardaarmaa? sakaraadaan ahay waad u jeedaaye, waxay dhexlaayana ma laha ilaa hal gabaraan qabaa, duumaalna waa ahay nin xoolo badan leh, xoolahayga oo ala rasuulku wuxuu dhahay laa maya lama ogola. qultu waxaan idhi fashatr, nuska waran haddaan dardaarma? qaala laa. qultu athuluth, qaala nebigu wuxuu dhahay athuluth, thuluthka dardaaran, saddex marka loo dhigay qayb ka mida waay. wathuluthu kaiirun, thuluthka xataa waa badan yahay buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam. inaad ka yaraysaan jeclaan lahaa, laakiin waa la ogol yahay. waayo innaka adiga sacadow in tadaca inaad ka tagta warahataka, dadka ku dhexlaaya akhniyaaa ayagoo taajiroo xoolaha iikaad u dhaafta ayaa khayrun ka khayr badan min an tadacahum intaad uga tegi lahayd caalatan ayagoo faqiiro ahoo yatakafafuuna annaasa dadka u gacmo hoorsanaya tuugsanaya, inaad ilmaha wax uga tagtaa ka fiican buu dhahay nebiga. yatakafafuuna ayagoo u hoorsanaya annaasa dadka fii aydiihim gacmahooda. wa innaka adiga mahma anfaqta, wax kastood bixiso oo min nafaqatin wax bixin ah, fa innahaa sadaqatun, sadaqay kuu tahay buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam. sacad waxay la tahay markaa macnaha waxyaabaha ee bannaanka lagu bixiyay sadaqadeeda inay weyn tahay, oo waxyaabaha ilmaha iyo xaasaska la siiy sadaqa saas weyn inay ahayn, taasuu markaa la tahay. nebiga tiibuu u tilmaamayaa wa innaka mahma anfaqta, wax walbo aad bixiso oo min nafaqatin nafaqa iyo wax bixin ah, fa innahaa sadaqatun, sadaqay kuu noqonaysaa xata luqma, qaadasho raashin ah oo tarfacuhaa aad kor u yeesho ilaa fii imra'atika, naagtaada afkeeda aad geliso, waxbuu ku siinaa ilaahay sadaqa subxaanahu wa tacaala. laba macnaba suuragala waayo raashinkii oo bisla intaad soo qaado gacantaad aad ku soo qaado xaaskagaad afka u geliso, sadaquu kuu qoraa ilaah subxaanahu wa tacaala. waxaa macquula in loola jeedo waxyaabaha nafaqadii masruufka aad siinayso, taana macquul waay. wacasa allah ilaah waxaa la arkaa an yarfacaka inuu ku kor qaado, macnaha in cimrigaaga la siyaadiyo oo fayantafica bika naasum, dad lagugu anfaco adi dartaa, oo wayaduru bika alaakharuuna, kuwa kalena lagugu dhibo. walam yakun lahu yowmaidin ila bnatun,
gabar maahana wax kale ma lahayn maalinta laakiin cimrigiisa ilaah waa ziyaadiyey subxaanahu wa tacaala ilaa dadkii shaam iyo meelaha ka dagaalamay ayuu ku jiray wakhtigii cumar ibni khitaab sidaa darteed ilmo kalena gadaal markaa wuu ka dhalay xadiiskii 125 can abi hurayra qaala wuxuu yidhi qaama rasuulullaahi rasuulkii ilaahay ayaa istaagay sala allahu calayhi wasalam xiina wakhtigii anzala allahu ilaa uu ku soo dejiyey wa andir cashiirataka alaqrabiin qaraabadaadii tolkaa kuwa ugu dhowdhow u dig markii lagu soo dejiyey waa istaagay nebiga sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi yaa macshara qurayshin quraysh macsharteediyey ow kelimatan naxwaha ama kelimad saasoo kale ayuu yidhi ishtarow gata ayuu yidhi oo ka iibsada anfusakum nafafyaalkiina ilaahay ka gatoo janna ku beddesha macnaa diinka raaca waaye laa ughni deeqi maayi cankum xaggiina min allah ilaahay xaggiisa shay-an idinkaga taraaya markaa ma jire yaa bani cabdimanaaf reer bani cabdilmanaafay laa ughni cankum min allaahi shay ilaahay xaggiisa waxaan idinkaga tari karaa ma jiro yaa cabbaas bin cabdilmuطalib waa nebiga adeerkiis laa ughni canka min allaahi shay igaar aan nebi adeer u ahaa nebi ahaa iyo ilaah agtiisa ma taalo subxaanahu wa tacaala naftaada ilaahay ka gado rabbi agtiisa waxaan kaaga tari karaa ma jiro yaa safiyata safiya oo cammata rasuulillaah rasuulka eedadiis ahay laa ughni canki min allaahi shay adigana alla agtiisa waxaan kaaga tari karaa ma jiro yaa faadimata binta muxammadin faadima maxamed gabadhiisa ahay adigana siliini i weydii buu yidhi min maalii maalkayga maa shi'ti wixii aad doonta iga weydiiso laakiin laa ughni canki min allaahi shay ilaahay xaggiisa waxaan kaaga tari karaa ma jiro haddaba dadaal gabarteedii oo taacada ilaahay raac xijaabkaaga labiso gabar fiican noqo saasuu nebigu kula dardaarmay sala allahu calayhi wasalam xadiiskii 126 can abi hurayra radia allahu canhu ana rasuula allahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam ra'aa rajulan nin ayuu arkay lam yacrif ismahu magaciisa aan la tacriifinin rajulkaasoo yasuuqu badana kaxaynaaya nin saaqahoo wada badana ayuu rasuulku arkay sala allahu calayhi wasalam yasuuqu lbadana waxaa loola jeedaa ama badanada waxaa la yidhahdaa xoolaha hadiga ah ee markaa xaramka loo wado nin wado ayuu rasuulku arkay oo aan raacsanayn macnaha ma raacin gaadiid ahaan asagana lugtuu ku socday hashina waa kaxaynaaya faqaala wuxuu dhahay nebiga arkibhaa kor buu dhahay iska raac gaadiid ahaan u isticmaal faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah innahaa badanatun badana waayseen u raacaa hadyi waayo xaramkan u wadaa ninku waxay la tahay xoolaha hadyiga loo wado inta xaramka aan la gaarsiin inaan la isticmaali karin oo gaadiid ahaan aan loo raaci karin saasuu u haystaa rasuulka allow badana waayu dhahay faqaala wuxuu dhahay nebiga arkibhaa raac buu yidhi kor bahasha waylaka aw wayxaka fi aaniya halaag baa kuu sugnaaday ama liibaane fi ahaaniyati aw fi ahaaliثa markii saddexaad ama markii labaad ayuu sidaa yidhi nebiga sala allahu calayh wasalam xadiiskii 127 can ibni cabbaasin ana sacd bin cubaada ayaa tuwafiyat waxaa la oofsaday ummuu hooyadii wahuwa qaa'ibun asagoo maqan canhaa xaggeeda ka maqan faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allaahi rasuulkii allow ina ummii hooyaday ayaa tuwafiyad la oofsaday oo nafteedii la dedejiyo mowtulfaj'a ayaa ku dhacay wa ana qaa'ibun canha anoo xaggeeda ka maqan hooyo sadaqa jecelay ahayd ayanfacuhaa wax ma u tara oo ma anfacayaa shay-un shay in tasadaqtu bihi haddaan ka sadaqeeya canhaa xaggeeda ma anfaca haddaan sadaqa u bixiyo qaala rasuulku wuxuu dhahay nacam haa qaala ninkii sacad wuxuu dhahay fa innii anigu ushhiduka waxaan markhaati kaaga dhigay adigoo nebi ilaahay ah anna xaa'itii beertayda almikhraafa ee mikhraafka gaartay mikhraaf waa beer gurasho gaartay markaas oo miraheedii bisloo in la cuno keliya markaa rabtaa sadaqatu canhaa hooyaday ayaan xaggeeda ka sadaqeeyey hooyaday sadaqa u tahay qof kasta oo cunaa hooyaday inuu ilaahay ii gaarsiiyo sidaasaan markaa rabaa isku tilmaamayaa dadka dhinta sadaqooyinka loo bixiyo wax gaaraya inay yihiin oo markaa mashruuca xadiiskii 128 can anas ibni maalikin qaala wuxuu yidhi qadima rasuulullaahi rasuulkii ilaah ayaa soo galay sala allahu calayhi wasalam almadiinata magaalada madiino laysa lahu khaadimun asagoo khaadim iyo wax u shaqeeya aan haysan fa akhada abuu talxata wuxuu qabtay biyadii gacantayda anas ibni maalik baa dhahaya anas ibni maalik abuu talxa ummu sulaym ayuu qabaa idan abuu talxa oo muslimiintu u qaba ayaa hooyo ah idan adeer buu u noqonaa gacantuu ka soo qabtay nebigu u keenay fantalaqa bii wuxuu ii keenay ilaa rasuulillaahi rasuulkii ilaah sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yidhi abuu talxa yaa rasuula allaahi rasuulkii ilaahayow inna anas cunuga la yidhahdo ghulaamun waa wiil
kayisun oo dhug leh wiil dhug leh oo caqli low ah waayo buu yidhi falyakhdumka ha kuu khidmeeyo qaala wuxuu yidhi anas fakhadamtu waan u khidmeeyey nebiga fii safari waalxadari asagoo safar aan ahayn oo magaalada jooga maa qaala lii iima dhihin lishayin shay sanactuhu aan sameeyey lima sanacta haada kan maxaad haakadaa saan u yeeshay ima dhihin nebiga walaa lishayin shay lam usnachu aan samaynin lima lam tasnac haada haakada kan maxaad saan u yeeli weysay ima dhihin buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam idan aad buu dhaqan fiican igula dhaqmay taasuu tilmaamaya xadiiskii 129 can cabdullaahi bni mascuudin qaala wuxuu yidhi sa'altu rasuula allah rasuulka ilaah ayaan su'aalay sala allahu calayh wasalam qultu waxaan idhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow ayu lcamali afdal camal la sameeyaa u fadli badan qaala wuxuu yidhi nebiga alsalaatu calaa miiqaatiha salaad wakhtigeeda lagu dugto ayaa u qiimo iyo wanaag badan subaxoo subax la dhaafsiin duuroon duur la gudbinin salaad kasta oo jamaaco wakhtigeeda la geeyo waa mid u fiican qultu waxaan idhi uma ayu maxaa ku xiga qaala biru lwaalidayn hooyo iyo aabboo loo asxaan iyo baarinimo falo qultu waxaan idhi uma ayu maxaa ku xiga qaala aljihaadu fii sabiili illah jidka alla oo lagu diriro ayaa ku xigaan idhi buu dhahay fasakadtu waan ka aamusay can rasuuliillaah rasuulka ilaah sala allahu calayh wasalam xaggiisa walow istazadtuhu haddaan ka siyaado dalban lahaana la zaadanii waa ii siyaadin lahaa nebiga sala allahu calayh wasalam anaa shid iska dhahay maahane uma ayu haddaan dhihi lahaa waa ii weli lahaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiiskii 130 can ibni cabaasin radia allahu canha can ibni cabaasin radia allahu canhuma asii aabiiba allah ka raadi noqday qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi rasuulka alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa hijrata hijra ma jirto bacda alfatxi fatxu maka kabacdi walaakin jihaadun jihaad ayaa jira iyo waniyatu niyo ee faida stunfirtum haddii laydin wici dalbo oo laydin dhaho soo baxa jihaadaa la aadaaye faanfiruu baxa buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam laa hijrata bacda alfatxi hadhihina idinkoo xataa maka jooga jihaadaa jira haddii laydin dhaho fanfiruu laa hijrata macnaha waxaa loola jeedaa in maka mar kale laga baxo in ma jirto xaaladda noocaas ah waayo liannahaa saarat daaru lislaam waxay noqotay daartii muslimiinta idan mar kale laga bixi maayo maka taasuu tilmaamay nebiga sala allahu calayhi wasalam xadiiskii 130 can abi hurayra radia allahu canhu can innabiy nebigu wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala inuu yidhi nebiga qaala sulaymaan bin daawuud sulaymaan ibni daawuud ayaa wuxuu yidhi waa nebi sulaymaan iyo nebi daawuud oo aabbihiis ahee sulaymaan baa hadlay calayhim assalaamu nabadgelyo korkooda allah yeelee la atuufanna waxaan ku dawaafi doonaa oon jimaac ugu tegi doonaa alleylata caawa calaa 100 imra'atin 100 naag ow 99 imra'a ama 99 naagood ayaan caawa keligii dawaafi doonaa buu yidhi kulluhunna mid kastaa ya'tii waxay ila imaanaysaa bifaarisin dagaalyahan oo yujaahidu ku dagaalama fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa naag walboo 100ka ama 99ka ka mid ah canug mujaahiday ii dhali doontaa faqaala lahu saaxibuhu saaxiibkiisii ayaa wuxuu u yidhi in sha allah dheh saaxiibka waxaa lagu fasiraa malakul jibriil calayhi salaam ayaa sidaa yidhi ama malagyada ka mid ah ama waa jibriil ama waa kayrkiise ayaa in sha allah dheh la yidhi sulaymaan falam yaqul in sha allah ma dhihin asaga idan ma maqlin ma dhihin in sha allah waa sidii buu yeelay falam yaxmil minhunna wax ka uuraystay ma jirin 100kii naag markuu jimaacay ilaa imra'atan waaxidan hal naag maahane waaxidatan jaa'ad waxay la timid ay dhashay bishiqi rajulin rajul jab ah ayay dhashay والذي معبودكي بان ku dhaartoo dhahay nabiga nafsu muhammadin nabi muhammad nafsadiisa biyadihi gacantiisa ay ku jirtay law qaala in sha allah إن شاء الله دوده لها سليمان لجاهدوا في سبيل الله جدك الله كنت قال لها ينبقل كوضبا عز وجل فرصانا أيها المجاهدين أجمعون بقول كوضبا إن شاء الله لهدو كدري لها انت وضع أورستان يمد كستا وحيد لها مجاهد ألا جدك سكنت قال لها حديث كي بقول صدني لها عن أنس بن مالك عن النبي وحكوري صلى الله عليه وسلم قال إنه رأي النبي الطاعون حضور كالطاعون كالإرادة شهادة شهيد لما ayuu gaarsiiyaa likulli muslimin qof kastoo muslim ah daacuunku qofkii ku dhinta asagoo muslim ah waxaa la siinaa darajada shahiidnimada xadiiskii 133 can baraa'i bin caazibin qaala wuxuu yidhi ra'aytu nabiya nebiga ilaah ayaan arkay sala allahu calayhi wasalam yowma alaxzaabi maalintii dagaalkii axzaab yanqilu
asagoo guraya abturaaba ciidda waqad waara ay asturtay dabooshay abturaabu ciiddiina bayaala batnihi calooshiisa caddaanteeda ay ciid qarisay. dagaalkii axzaab waay markii ciidda la guraayey ayaan arkay buu yidhi, wahwa yaquul asagoo dhahaya lowlaa anta mahtadayna walaa tasadaqna walaa sallayna faanzil isakiinata calayna wahabbit alaqdaama in laaqayna ina aluulaa qad baguu calayna ida araaduu fitnatan abayna. saasuu ku shicraayay nebiga sala allahu calayhi wasalam. asxaabtu saas ayay dhahayeen, wahwa yaquul lowlaa anta ilaahayow haddaadan adiga ahaan lahayn mahtadayna maba hanuuni lahayn annaga, walaa tasadaqnaa ma sadaqaysan lahayn walaa salayna mana dukan lahayn ee faanzil isakiinata xasiloonida calaynaa korkeenna ku soo deji wahabbit alaqdaama lugaheenna sub in laqayna haddaan cadowga la kulanno. ina aluulaa kuwan qad bagaw calayna way nagu soo xadgudbeen idaa araaduu fitnatan fitna hadday doonaanna abaynaa waa diidnay ayuu dhahaya nebiga sala allahu calayhi wasalam. wallahu aclam.